بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الله الصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حديث كأن مانتا وحديث كي أفري طبنات وأنا حديث أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء رواه البخاري ومسلم حديث كان حال قوري أنس بن مالك رضي الله عنه إنه يري رسولك صلى الله عليه وسلم حوها كي قال مسقشة أنيقى يويل da-dayda ah baa waxaan u qaadi jirnay waalay ku jiraan biyo iyo ul yar eebo ama taki markaas wuxuu ku istijoon jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam biyaha xadiidkaa waxaa wariyay bukhaari iyo muslim intaanan xadiidkan gelin waxaan baraarujin lahaa darsigii ka horreeyay waxaan niri waa xadiidkii 14 kanna waxaan niri xadiidkii 14 waxaan uga jeednaa inaan kala saarno axaadiidta qeyb ka mida waxay ka hadlayaan fiqiga iyo axkaamta qeyb ka midana waxay ka hadlayaan tawxiidka iyo caqaa'idka idan kuwa tawxiidka iyo caqaa'idka ka hadlaya waxaan garanay inaan iyaga gooni u saarno waxaan ka bilownay raqam 1 idan darsigii u dambeeyay wuxuu noqonayaa darsigii koobaad ee tawxiidka ah kanna wuxuu la socdaa duruustii hore ee ahaa fiqiga idan fiqiga waxaan maraynaa xadiidka 14 xadiidkan waxaa wariyay Anas ibn Malik radiyallahu anhu ardaah oo ah khaadimkii nabiga sallallahu alayhi wasallam muddo dheer nabiga uu khidmeynayay asaga iyo wiil yar oo dhalinyaro oo da'diisa ah baa nabiga waxay u qaadi jireen sallallahu alayhi wasallam marka uu kor tagayo xaajo gudanayo waxay u qaadi jireen biyaha iyo ul yar oo eeba biyaha waxa lagu isticmaalayo xadiidkeedu ku jirtaa oo qofku inuu biyaha ku istinjoonayo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku istinjoon jiray laakiin maxaa loo isticmaalayaa maxaa la yiraahdaa usha maxaa loo isticmaalayaa waa su'aal waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabihii usha uu isticmaali jiray culimada islaamka waxay yiraahdeen dhowr ihtimaal baa ku jira ihtimaalka koobaad waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam waa fogaan jiray markuu kor tagay mar hadduu fogaadana dadku musqulo caadi oo la isticmaalo ma lahayn haddaba qof walba markuu xaajo rabo inuu guto asna waa soo fogaanaya usha markaa meel buu suran jiray salawaatullahi wasalaamu calayhi kadib buu mara saari jiray si loo garto si ay uga qariso macnaha dadka kaloo meesha marahay waa qodob waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ay culimadu yiraahdeen inuu calaamad ka dhiganayay si loo garto meeshan qof baa joogo ku xaajo gudanayay ama ku qubaysanay arrinka saddexaad waxaa weeye meesha la isticmaalayo in la isaga fiiriyo inay tahay meel adag iyo meel jilicsan waxa loo isticmaalayna waxa la isaga fiirinayna waxaa weeye meel adag qofka hadduu isticmaalo dee najaasadii kusoo noqonayso soo maha oo uu najaasoobaya arrinka afaraadna waxaa weeye oo suurtagala oo alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximahullah uu yiri kaasaadba moodaa inuu yahay waxaa weeye marka uu qofka nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaa caadadiisa ay dhaqan u ahay marka uu suuli tago uu kasoo baxo suuliga inuu weese qaato marka uu weese qaato kadibna waa tukanaya marka la tukanayana waxaa noo iman doonta qofku inuu sudro samaysto oo sudro u dhigto idan ushaa nabiga sallallahu alayhi wasallam hortiisu qotamin jiray salawaatullahi wasalaamu calayhi afarta ihtimaal baa ku jira xadiidka maxaa la yiraahdaa laga qaadanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ushaa u qaadan jiray waxaa soo haray biyaha waxaan ognahay qofka markuu xaajo guto laba waxyaabood baa bannaan inuu istinjaa sameeyo iyo istijmaar istinjaagu waxa weeye biyo inuu isticmaalo
iyo inuu biyo waxaan hayn isticmaalo. berigi hore waxaa la isticmaali jira dhagax iyo wixii lamid ah. haddana maxaa la isticmaalaa? af soomaali maxaa lagu dhahaa? warqadaas soomaalidu maxay u taqaanaa? aadan hay-adaha soomaaliya ku dambeeyey. toilet paperka maxaa soomaaliya laga yidhaahdaa? soomaalidu waxay dhahaan tiish. tiish bay dhahaan. anagu tiishoogii caadiga ah bay tiish yidhaahdaan. adugu warqada dhamadhe ama tiish dhehe. warqadahaas in la isticmaalo iyo wixii lamid ah, labadaasaa loo kala qaadaya. idan marka biyaha la isticmaalayo waa la gartay, laakiin warqad haddii la isticmaalayo shuruud bay leedahay. shuruuddeeda hadda ka hadli mayno. waxaa ka mid a taxdiidku sheegay 3 inay tahay iyo wixii ka badan. aduu tiro isdheer inay tahay 3na ugu yar tahay baa ka mid a. shuruudaha kale u geli mahayo, waa badan yihiin ayagu. halkaasaan shardiyan kusoo gaabinaya. laakiin culimmada islaamku waxay isku raacsan yihiin ridwaanullahi calayhim ajmaciin in labadaba la isku dari karo, biyaha iyo warqadahaas la isticmaalaya in la isku dari karo. 2 labadooda mid in lagu gaabsan karo. meeshaan in aada loo dhageystay u baahan tahay. dadka qaar ba waxay ku leeyihiin gaar ahaan dadka meelaha shaqada jooga oo kale wuxuu ku leeyahay ma tukan karo ilaa aan biyo helo oo musqul biyo leh aan helo. maxaa dhacay? wuxuu ku leeyahay musqul baan galay, waxaan isticmaalay warqad baan isticmaalay. warqadda haddaad isticmaashay oo aada shuruudii ka soo baxday oo aada isnadiifisay, looma baahna biyo kale inaad isticmaasho. waaba dhammaatay. biyo kale inaad isticmaasho looma baahno. idan labadooda adoo biyihii heli kara baa waxaad ku gaabsan kartaa warqadii ama dhagaxii wixii la midkaa. adoo dhagax heli kara baa waxaad ku gaabsan kartaa biyo. laakiin darajaad bay kale leeyihiin. waxaa ugu fadli badan in labadooda lagu istinjaysto, biyihii iyo warqadii in la israaciyo. waxaa xiga biyaha in la isticmaalo. waxaa u dambeeya warqadda keligeed in lagu gaabsano se laga haboon yahay. arrintaasna waa arrin ijmaaca culimmada oo dhan ay isku raacsan yihiin. wax khilaafana dhexdooda ma yaalaan. xadiidkeenna maantay intaasaan kusoo koobaynaa hadduu ilaah yidhaahdo. xadiidka xigoo isla najaasada ku saabsan baa laga yaabaa inaan ku faahfaahino. maxaa la yidhahdaa shuruudda fuqahada ay u dhigeen, gaar ahaan inta lagu dhigtay maxaa la dhahaa safiina salaadka iyo safiinata najaah inta lagu soo dhigtay baan hadduu ilaah yidhahdo wax ka tilmaami doonaa. halkaasaan ku ekeynaynaa. wasali allahuma calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. anigu miyi baan kusoo koray, ushaana waanu isticmaali jirnay. marka adigu waxaad tiri waxaa laga yaabaa inay tahay arrintan sutrada miyaa tiriya ugu dhow. laakiin anigu waxaan u malaynayaa annaga marka miyiga joogna waxaa isticmaal ushaa waa dadkaa lagu qodi jiray meesha si ay u jileecdo. soo ma garanayso kaadi kugu soo noqonin. marka taasaa ugu dhowaa waan u malaynayaa. waa laga yaabaa, laakiin anugu midaan sheegay anuu ma dhihin waa ugu dhowdahay. alxaafid ibn xajar aa dhahay taasaa ugu dhow.